horta Soomaaliska aad baan ugu mahadcelinayaa daljir aad baad ugu mahadsantihiin waana fursad qaaliya aad iyo aad u qaaliya shacab weynaha Puntland waana in loo sheegaa bulshada waxa dalka xaqiiqda ay taagan ay jirta waa midda labaad waxay tahay halkan maraakiib doonyaha la soo qabtay horta doonyaha waa nooca fiber glass la yiraahdo doonyaha fudfuda waxaana qaybtood iska lahaa jariifna ma aanay ahayn kuwa waaweyn baa jariifka la yiraahdo yani wax jariifayo wax walba soo wada xaalfinaya laakiin kuwa waxaan doonay ganacsatada qaybtoodna dalka laga leeyahay qaybtoodna Puntland maamulka Puntland ee dalkeena laga leeyahay qaybna laga leeyahay dalka baxsan marka waxaan la jeedaa saddex doonyood ayaa la soo qabtay labadii bishii saddexaad sanadii 2016 isla markiiba si degdeg ah ayaa meesha lagu soo kala gaaray wasaaradda kalluumaysiga wafdi ay u soo dirtay wafdigaas oo yimi wasaaradda iyaga oo qiimeyn iyo indhayn ku sameeyay doontii kadib markii ay koreen dabadeedna waxay ku soo rogeen ganax oo ay ka qaadayaan saddex doonyood mid waxaa lagu ganaaxay $3,000 midna waxaa lagu ganaaxay $2,000 midna waxaa lagu ganaaxay $1,000 iyo saddexdoodaba in labada hore ay iyo inay shatigii Puntland ay ku istaaneen agaasimayaasha la soo diray guddiga la soo diray ee wasaaradda ay soo dirtay ayaa ganax ku rogay anigu garan maayo sharciga meesha laga taano xeralaaliye maxkamadii waxa shaqeynaysay gobolka oo adigu xeralaaliye ka tahay lagu soo magacaabay maxay tahay sababta maxkamadda loo keeni waayay oo ay wasaaraddu u ganaxday doonyahaas la soo qabtay xaqiiqatan marka dadku marbay sharcigu dhinac maraan maanu ma garan karo Puntland marka aan ku hadlayno waa dawlad baarlamaani ah wixii sharciga ka weyn baa jira xeralaaliye wax yar aan dhamaysto Puntland waa dawlad baarlamaani ah baarlamaanka dawladuna waxay u qeybsan tahay saddex gole waa garsoor fulin iyo sharci dejin fulintii haddii ay soo faragelito howlihii garsoorka u lahaa haddee waxa weeyaan fulinta waxay isku noqonaysaa fulin iyo garsoor waan dhihi karayna waayo shaqada tan ganaaxa ah sharciga Puntland meel ay uga taalo hal yaraatee ma jirto bal ay shuruucda caalamiga ah xitaa kuma taalo in wasaarad ay wax ganaaxdo wasaarad kalluumaysiga in dowlad la soo qabtay waxaanu naqaanaa sharcigu wuxuu dhigayaa doonta marka la soo qabto doontu haddii sharcigu u gafto waa eedeysane marka la soo qabto waa eedeysane iyadii kuwa saaran marka la soo qabto waxaa sharci ah in la horgeeyo maxkamadda ayaa dembiga ama dusha ka saaraysa oo dembiga ku rogaysa oo haddii dembi leedahay way dawcadeynaysaa haddii aanay lahayn halkaas ka baxday leedahay marka dee doonyo inta layska qabto oo layska xukumo anigu waxaan u arkaa afduub inay tahay oo ma arko ganaax inuu yahay lacagta waxaan u arkaa lacag baara inay tahay waayo borseedkii sharciga ah ee la marin lahaa ma arko in la mariyey meeshana kuma jirto wax wasaaradda kalluumaysiga ka socda oo aan maxkamaddu weli la xiriirtay ma jirtaa xaqiiqatan isdayaasha iyo qolyihii guddiga lasoo agaasimayaasha lasoo diray baan anigu la fariistay habeenkii waan waraystay maxaad ku ganaaxdeen baan ku idhi baynama ay maxkamadii jirto waan anigu xeelaalihii gobolka ahay oo shaqadaydu tahay intuu dembiyeedka dhaca bad iyo beriba gobolka gardafuul bad iyo beri dembiga ka dhaca annaga ayaana la weydiinaya annagaana dabagalkeeda iyo baaristeeda iyo qabashadeeda iyo xiristeeda iyo maxkamad horgeynteedii ilaahay waajib nooga dhigay waana waxa aanu kitaabka gacanta ugu saarno aan u baaran inaan waajibkeeda gudan so marka haddaan waajibkeenu ka gudan weyno taas micnaheedu haddaan waajibkaasi badda aynu gudan weyno micnaheedu maaha inagu inaan waajibkeeni gabnay waxa weeyaan shaqadeeni baa lagu soo fargeliyo shaqadii aanu lahayn ayaa lanagu haystaa waa tahay soo lisma oran karo wasaaradda kalluumaysiga Puntland uma aqoonsana maxkamadda taala gobolka Gardafuul inay mid shaqeysa ay tahay ma inkiri karto dastuuriyan maxkamadda gobolka xeraaliye haddaysan inkiri karin hadeer baa ganaxyo iskagama dhufateen maxkamadda oo shaqeynaysa waxa meesha ku jira waxa weeye markii hore waxay ku ogeyd gobolka bilaa garsoor miyaa bal iska daayay gobolka bari oo aanu garanayno garsoorkiisi uu soo shaqeynayay 18 sano ee Puntland ay soo jirtay xitaa inta ka horeysay ay sii shaqeynaysay ayaan maxkamadii la horkeenin dhibaatadana waxa keenaya waxa weeye marka baa la diraya howlgal buu sameeyaa markabkii wasaaradda ku xiran yahay markabkii howlgalkii markuu soo shaqabto wixii uu keeno in maayo garsoorkii meesha joogay ibliiskina ku wareejin maayo wuxuu leeyahay anigu hay-ad baa soo dirtay hay-adaas ay soo dirsatay fulinta la yidhaahdo wasaaraddaas gaar ahaan agencyga gaarka ee wasaaraddaas ay soo dirsatay wasaaraddaas anigu waxuu qabtay howlgalkayga percentagekii wasaaraddan ku lahay marka meeshaas waxaa ka baxaysa nidaamkii dawliga ahaa
السيستم كها وحنا نغلطها نقول بو ماشي wax kasoo gaarto ka cunbay hadda maraysa sheekadu ma dhihi karno anagu system dawliga dadweynahaasi sharciga bay mareen tan dhacdadii hadda kaliya dhacday maaha bishan labaad waxay maraysaa tii tobnaad oo wax la iska caadaystay oo wadda laga dhigtay lana banaystay la sharciyeystay